doonaa xalqad ku saabsan community guidelines. طبعا وفيديو بيقولي الصومالي كهذا أد كبرتان YouTube guidelines أما شروط يوتيوب اللي بيصير ربطي سلورها وحكم إذا نمبركم content خيامة سيدا فيديو عاد كسر ترتي قناة كاغا لكن كوشة ترى 3 شهر أما 4 شهر إلا 5 شهر عاد كبد شيء مجا يصورك وممنوع يوتيوب هدية كوجو أجاتنا سي لما يسترن أي لود اللي تكرهنيا فيديو ده وحكم إذا فيديو بان سيدا إنا ترى برا سيدا لا ينستول كرايو واتساب سيدا لا أكتيف كرايو سيدا لوجو شقيسيو سيدا كو استعمال لهاي بس فيديو كمركز كشو وقف كيسرا داو الأركيسو إن أنا كوتشي وحي كلا أردن أو كلية تو فيديو وكهاليو سيدي لو إنستول كريني وممنوع ما نكلو وقفتنا عقاب نحملو ضايا لو ساريا وحكم يوتيوب guidelines تنبني خلاف سن فيديو جاجا تصالحان إن عاد فيديوغا دول سارتو تمبليت أما صور تمنيل واحد يرى صور كدول سارن فيديوغا صور كاس dadka qaar waxay ku tala galaan in ay si buuxda u soo jiitaan dadweynaha sida daraadeed waxay ku khiyaamayaan dadweynaha sawirkaas oo sifeynayba fiidiyowgii aan la mid ahayn meel laba aan ka soo galin wuxuu ku soo dhigayaa sawir cajiib ah oo aan daafi karin laakiin fiidiyowgii markaad gasho waxba ka soo faa'iideysid kaliya wuxuu rabay in uu kasbado viewer ama booqdayaal fara badan oo tiradooda kordhiya number 4 argagixinta dadweynaha وكما أنه يوتيوب وجوب آمن والله تعالى قالي سي أمن ودما يستران إن أي تدوينه وضاوضان فيديو يده حدي ألسوق لسه فيديو أرجع قلني أو كبحسن بني آدم لماذا يوتيوب مركز شاكل قصة يسوي فيديو جاهز وحيك أورانيسا فيديو جن وفايلت كري إسلام مركانه كسر كذا guideline مسكيني سيدا درادد استريك لح بلو أي لو صاريا حدي أضعبيل بحسه laga soo aqbali maayo waayo sharciga ee jibsi waana mid ku kalifaya kanalkaaga in la dhigtay gabi ahaantiina waxa kale oo kamid sawir si buuxda u qaawan YouTube waxa ka mamnuuca fiidiyoyada sexualka iyo sawirada sexualka ee galmada marka dadka qaar waxay sameeyaan sawir galma ay fiidiyowga dul saaraan kaas oo ay ka rabaan in dadka qalbiga jilicsan oo dhan ay ku soo jiitaan fiidiyowgooda isla markaana ay dad badan u daawadaan YouTube haddii ay ku aragto laba qodob mid bay ku sameynaysaa in fiidiyowga ay delete garayso kadibna streak la saaro kanaalkaaga 6 bilood saarnaanaysa iyo in fiidiyowga la dul saaro calaamada for adults only booqashada aan caadi ahayn fiidiyowga waxaad kaga hadashay tusaale ahaan iyo viewerskaaga booqday fiidiyowgaas haddii aanay isku qalmin oo aanay isku dhigmin oo ay kala farabadeen oo fiidiyowga waxaad kaga hadashay uu iska yahay wax iska jaban oo iska maalayacni oo meaningless isla markaana aad kasbatay viewers tiradooda aad u fara badantay oo macquulkii ka baxsan YouTube way ka shaqeysaa isla markaana fariin ay ku soo diraysaa kanalkaaga wuxuu iska bedelayaa from good standing to bad standing ayuu isku bedelayaa YouTube marka streak ay saaraysaa kanalkaaga waxaanay ku sheegaysaa inaad khilaaftay sharcigooda waxa keeni doona qodob kale ayuu ku xidhay oo soo socda oo ay isku xidhan oo qodobka noqon doona 9aad ayuu ku xidhan yahay waxa kale oo kamid ku xadgudbista kanaliska waa wax ay YouTubersku aad u caadaysteen in kanal lagu xadgudbo qodobkan ayaa u baahan si buuxda inaynu fahanno isla markaana si buuxda aynu sharaxno maxaa looga jeedaa ku xadgudbista kanaliska dadka qaar waxay adeegsadaan in hab aan sharci ahayn oo YouTube khilaafsan oo in kanal ay tagaan tusaale ahaan hashku kanal aad tagto fiidiyoyo ka hadlay aad soo qaado kanalkaaga aad geliso ama isla markaana in qofka xayisiis yar oo cod oo song hees aad u lahaa oo kanalkiisa oo xala sida tacaanka BBC-da ay taqaanaan oo kale kanalka BBC-da codkeedaas oo kale hadii aad soo qaadato oo video aad leedahay ku darto YouTube wax digniin bay ku yara siinaysaa ay ku leedahay ka saar codkaas sababtoo video hore oo YouTube-ka ku jira ayaa leh xaqna u leh hadii aad ka saari weydo streak baa lagu saarayaa
isla markaana kanalkaaga waxa dembi ayuu galay videogana waa la dadgareynaya 6 biloodna waxa laga xanimayaa features fara badan haddaba sidoo kale waxaa ka mid ah video qof lahaa intaan soo qaatay tabtiisii aan soo qaatay oo aan geliyay videoga waa mamnuuc waa copyright-ka aad ku xadgudubtay qof kale oo lahaa ama xuquuqda qof kale oo lahaa waan arkay dabcan oo la sameeyaa aniga kanalkayga laguma sameyn laakiin waxa lagu sameeyay blogayga isla markaana kanalkayga lagu sameeynaya oo mid ka mid ah ardayda muxtarif kanaal wax ka barata ama isla markaana Cabdishakuur kanaal wax ka dhigata ayaa waxa uu sameeyay blog uu bixiyay xaafid80.blogspot.com markii aan dhamaynay silsiladii sida loo sameeyo blogging marka bloggiisa waa ka halka idin ka muuqda wuxuu ardaygaasi sameeyay videoga kadibna waxa uu ku soo daray dhammaan video casharadii aan ka hadlay oo dhan ayuu copy and paste siiyay isla markaana uu ka buuxiyay xaafid ITS طبعا waa mamnuuc kanal ma laha ninkaas odayga ah ee xaafid 80 u bixiyay magaciisa mar raba inaan sheego marka ninka xaafid 80 u bixiyay kanal ma laha laakiin waa wax mamnuuc ah isla markaana digniin ayaan ka siin doonaa inuu joojiyo qaladaadka noocaas oo kale haddii uu kanal lahaa waan report gareyn lahaa dabcan haddii qofka laga soo qaado kanalkiisa wax laba mid baa ku habboon adiga in aad sugto in YouTube checking gareynayso YouTube mar kasta way checking gareysaa video soo upload gareeyo hal mar bay checking gareysaa inuu shuruucdii khilaafsan yahay haddii systemku markuu check gareynayo uu ka boodo uu check gareyn waayo adiga report gareynaya dad kanalkii toos tagto waxaanad leedahay message loo diray YouTube qofkan wuxuu ku xadgudbay videogayga ayuu si aan sharci ahayn u isticmaalay isla markaana jawaab baa laga siin doonaa YouTube-kiisa oo dhan kanalkiisa oo dhan qofka si gabagabay si dhamaanaya looga saaraya meesha waxa kaloo ka mid ah calaamadaha description-ka la dhigo dad badan waxay caadaysteen YouTube-ka qaybta description-ka loo yaqaano ee lagu qoro videogu waxa uu ku saabsan yahay dadka qaar waxay ka buuxiyaan waxyaabo fara badan calaamada aad u fara badan kuwaasina waxay khalkhalinayaan YouTube algorithms marka YouTube kanalkaaga waa delete gareynaysaa si aan systemku u khalkhalin true view wax la yiraahdo ayaa jira waa kooxo iibiyo viewerska kooxahaasi waxay haystaan viewers fara badan kadib qof baa tusaale ahaan doonaya inuu Cabdishakuur kanaal daawado video u lahaa oo ku saabsan community guidelines videogii ayuu soo dhigaysaa kooxdaasi magaciisa iyo sawirkiisa iyo Cabdishakuur kanaal markuu ku dhufto waxa uu ku dhacayaa kanal kale iyo video kale oo kiiba ahayn ayaa la tusay oo la daawadsiinaya si looga kasbado viewer inuu ahaa oo soo booqday tirada oo kordha waa khiyaamo ay sameeyeen true viewers kooxahaas lacag loo siiyo waana mamnuuc gabagabadii waxaan kaga hadlaynaa qodobo fara badan ayaa jira laakiin intaas ayaan ku soo koobnay haddii aad jebiso YouTube guidelines waxa ku saarmi doona ciqaabo 6 bilood in laga xanibo features fara badan isla markaana aad ku shaqaysan karwida thumbnail uu ka mid yahay sidoo kale Google AdSense haddii aad raadsanaysay in mustaqbalka aad Google AdSense u xayeysiiso wax isla markaana lacag aad ka faa'iido mamnuuc ay kaaga dhigaysaa waana ku diidaysaa sababtoo waxaad faa'iido gareysay kanalka YouTube-ka guidelines-keedii haddii aad khilaafto waxay ku leeyihiin annagana kulli wadna khilaafaysaa marka sidoo kale haddii adoo Google AdSense khidmadda ka shaqeynaya oo ku jira service-ka oo u xayeysiiyo wax haddii aad khilaafto shuruucdan YouTube gebi ahaanba Google AdSense maalintaas kugu dambaysa waa inaad kanal kala samaystaa kanalkaaga dib loogama aqbalayo intaas ayaan kusoo koobinaa community guidelines intaan xalqadaha kale ku kulmi doono oo xalqado khibrado iyo waaya aragnimo aniga isoo martay ah aan ku bari doono waxaan ku kala tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh